halkani wasiilada xoolaha ee magaalada Boorama saakana xaaladeedu waxay mid mashquula dhaqdhaqaaqeeduna xiliyadan oo kale waxa uu yahay mid kor u sareeya balse dadka halkan sugu yimaado oo sugu jira dadka xoolaha keenaya kuwa iibsanaya ayaa waxay walaac weyn ay ka muujiyeen xoolihii lagu xanibay dekada Jidda ee Saudi Arabia taasoo ay sheegay inay marnaba u dul qaadanayn faragelinta ay sheegeen inay ku hayso dawladda Soomaaliya waxayna dadkani oo arrimahaasi ka hadlayaan hadaladoodii kamid ahaa waxa qiimo dhicista xoolaha ku dhacday iyo baaba ah noo geystay markabkii ay Soomaali weyn ay naga cambaaraysay saylada barbara marka waan ku baaba'sanahay dhibaatada ay noo geystay farmaajo yeelina mayno sidan oo de gumaysi ku noolaan kari mayno bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda ku nool magaalada Boorama markabka iyo maxaan ku dhacay dadkii markabkii cusub dhawaad xagga lagu cuna qabateeyay ayaa magaalada dhaqdhaqaaqa xulana way nala eegteen oo waxaan ku yiri anaga kaliya magaalada haysana ganacsi ma jiro danka wada jeeda aynaan ahayd oo wada noolaan karay oo Soomaaliland isku duubnay oo reer Boorama dad isku duuban oo mowqif lahayn noola cidna maxaan ku dhacay loo danayn mayso halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha islaamka ee ku nool meel kasta ay joogaan gobolka Awdal iyo daafaha dunida dibadaha ayaa ka salaamaya waxaad wax naga weydiiseen nolosha meesha iyo sida ay tahay duruuftu haddaad noogu timaadeen waad ku mahadsantihiin dhaqdhaqaaqa meesha haddii aan macnaha kaaga sheekeeyo annaga oon kolka horeba nolol qabin oo kolka horeba ma la yidhi u joognay dabadeedna waxa la yidhi markabkii dhoofay waxa ka taliya Soomaali weyn meel ku nooshay maan garanaynaa waa ka dambeynaa annagu han iska daawaynaane waxa la yidhi markabkii halkaa ka dhoofay waxa loo joogsaday Sacuudiga lagama rabayaa la yidhi maxay ahayd xoolaha markabkii la joojiyay markaanu ka hadalno saamaynta uu ku yeeshay maaragtay gagaynna xoolaha iibkooga boqolkiiba boqol bayna saamaysay saaka neefka adhiga 500 riyaal baa la nagu baayaxaya halkuu awalka ahaa 200 riyaal inaan ma doono dadka caynkaasa ma doono dadku waa xor hala sii daayo magaalo weeye wax kasta hada kala iibsado saamayntii markabka boqolkiiba boqol buu ku yeeshay wax kala sameeyay ma jiro waxaan salaanayna koobayn iyo maayirada iyo dawladda ku salaamayna waxa leenahay Soomaaliland hadaan nahay hana noo furo oo markabka la joojiyay waan ka xunahay waa lagu wada bariisay jiray xoolaan dhigan jirnay macayada waa ku tala gal jiray bish carafaya barakaysan waxa leenahay wada qabaynta taynta hana laga daayo Maxamed Xasan Ismaasheed bare wararka telefishinka Ariel magaalada Boorama.